halka waxa inoo ku eeg qaybtii koowaad ee lecture-keena ee features of Windows 10 qaybtii koowaad ayaa halka inoo ku eeg. haddaba haddii u gudubno qaybta labaad, qaybteena labaad waxay ku saabsan tahay features of Windows 10. casharkeena hore ayaa inoo sii socda. haddaba part 2 ama qaybta labaad waxay ku arki doonaa featuradii ee hore usoo wadnay qayb ka mid ah. okay, lambar 6 يعني هوري بيوح أسوق جوجني 10 كأنه هوري لمبر 5 أيوه كويكا. so لمبر 6 بو هذا كبلاوي sticky notice وحلو sticky notice ونوت أما نوت باد كا ودقمة أما يعني وكيري هاي ونوت وحلو sticky notice ونوت بوك لو تلاقي daily uses كا وحيابا متقنا عرفتينا خصوص تأه وما أنت شغلة كجدو يحيى يركع سيدو ماشي لو قرط مركا aad buu u faa'iido badan yahay, waana notebook aad u fiican oo computerka u leeyahay. marka sticky notice waxay ku jira si loo taga waa arkeena hadaba ila soco. markaad joogto shaashadaada yani wax ma kuma aragto hadeer halkan ma yaal desktop-kana ma yaal sticky notice, laakiin waxa sameynaysaa si laptop-ti hadeer يعني start menu باتيجا أما سيرج باتيجا start menu إسكتك كليك مركز يسوق وحقودا سيرج ده وحقودا الكاس وصو بعيسى وحقودا stick أنت كلي هتاخده كربو حقوس قبنيا stick notice مركز كله بطو وادركتها وويني كده ويرين كده ميشرت جيس كده وعنا نوت بوجي عاد صالحان وعن هلا كسام يا دمان وشوينتا غير بوصاص يعني هو وحلو تلاقي حسوسته هالكاس كلا ديجانيسا صالحان أما waxaan saaka la balansanay hebel saacadu barkata intaas halkaas dhiganaysa si marka computerka uu fudo hadhowdi u aragto. marka yani waa muhiim, waana wax daily use ah oo la isticmaalo. okay, hadda si tibaaxno casharkeena waxa inoo ku sii xiga lambar 7 oo ah voice recorder ama codduube